barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedo oo weheliyaan maayirka degmada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda oo degmada Gabiley iyo mas'uuliyiinta ku xigeenada ee maamulka heer gobol ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay jid laamay oo laga hirgelin doono guud ahaan magaalada Gabiley dhismahan jidkan oo noqonaya jidkii afraad ee dawladda oo si rasmi ah u bilowdo ayaa go'reynba dhagax dhigani waxa ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse oo sheegay dhismaha wadadan iyo waliba hadallo ay la sheegay in warbaahinta qaar baahiyeen oo ayna maamulka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiinta fulintu ay khilaaf soo kala dhaxgalay maayirka oo arrimahaas iyo arrimo kale beeniyay waxa hadaladiisii kamid ahaa haweenan wadadii afraad ee aanu maanta dhagax dhigayno muddada aanu joognay dawladda hoose maanta dhagax dhigaysa weey dadweynaha waxaan soo jeedin lahaa maadaama Soomaaliland maanta ay dib u dhiskii dalku si xoog ah si xawli ah u socdo gobol kasta iyo degmo kastaba inaan dhinaceena qaadano oo maanta wadada bilaabaysa anagu dawladda hoose oo bilaabaynaa laakiin cid kasta oo qayb ka qaadanaysa waan ku soo dhaweynaynaa tan iyo wadooyinka kaleba waxa maalmahan magaalada la hirgeliyay oo ah in khilaaf u dhaxeeya maamulka dawladda hoose degmada gaar ahaan xogayaha dawladda hoose iyo maayirka degmada oo aniga arrintaas oo moodooyin suuqa loo geliyay si aan jirin waxaan kaga jawaabaynaa anigu maanta halkan wada joogno xogayaha dawladda hoose in arrintaas waxa la wax ka jira runtii aanay jirin oo saliye raatoona runtii aanay lahayn waanu beeninaynaa waxaan leenahay maamulka iyaga degmada guddiga fulinta waan isku duubanahay xogayaha fulinta dawladda oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sidoo kale waxa kamid ah hadaladiisii maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii 12 2013 oo sanadka aakhirkiisa waxaan maanta dhagax dhigaynaa wado isku xidhi doonta wadada laamida ee Hargeysa iyo wadada magaalada gudaheeda marta wadadaasi oo aan doonayno inaan sida ugu dhaqsaha badan leh u dhameeyno maantana ay diyaar noo yihiin agafyadii iyo qalabkii aanu kaga shaqeynay barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedo ayaa sidoo kale tilmaamay ahmiyadda ay leedahay dhismooyinka wadooyinka oo ku tilmaamay guud ahaan caasimadda gobolku ay noqon doonto mid bilicdeedu qurux badnaata waxaan halkan u joognaa wadadii afraad ee laamigan isku xidha Boorame iyo Hargeysa iyo isku xidhaysa ka bilaabaysa iyo suuqa isku xidhaysa ay 300 mitir ayaan dhagaxeed dhigaynaa waxaan aad ugu hambalyeynaa maamulka dawladda hoose oo fuliyay wadadii afraad waa Nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka Gabiley.